waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka annaga dad badan oo culimada kamid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wad diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisi wada falsa waan arkay waayahan social media ninkan hadalka soo galiyay siyaasiga yiraahdaan Cabdiraxmaan Cabshakuur علم بدن way radiyeen culimada muslimiinta kamida radigoodana waad ka heleysaan muxuu ahay media dhaxdiisa laakiin si gaaban hadaan uga jawaabo xadiidka horta Bukhari iyo Muslim baa wariyay cid isaga ka horeysay oo xadiidkaasi durtay ama daciifisayna ma jirto asaguna waa siyaasiyo xadiid ma yaqaano حديثكم السجن يهم مثل مصقنا إنه وحكوك يهم مالين ما يقابل علمي وحديث كأما ضعيفين كرو أما صحيحين كرو محي لي حديث بخاري ومسلم كوي الله علماء يقول الرئيس واحد ضعيفية أي سنشرين كموسن ديردين هذا علمي حديث وحكا قرنايو ومد الله بعده حديث كمعنيه سنة موسى فهمين وحي حديث كالنبي مركو فسره صلى الله عليه وسلم آيات قرآن كو فسره وصلك وصاره وآيات قرآن في سورة البقرة كجرت آية المداينة كجرت بو النبي كو تفسيري صلى الله عليه وسلم ومسألة أي تهي دمرك وحال لبا ليسود دبردغي إني مid haday hal maanto ta kala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinaya xuquuqdii yaa la ilaalinaya mid labaad way xadiidka muusan fahmin oo wuxuu u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaada kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay ishhaad buu ka hadlaysaa shahaada kama hadlayo waxa kala duwan markhaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yaani wax way tawfiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu markhaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin markhaatiga loo sameeyo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda markhaatiga la furayo uu kala duwan yahay xadiidka iyo aayaddu waxay ka hadlayaan waa mas'alatul ishhaad ee shahaadada maxkamadda ma ah waa qodob kale isla xadiidka laftiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku cadeeyay dumarka markuu yiri naaqisaatu aqlin wa diin waxay yiraahdeen naqsiga aqliga naga ku jira muxuu yahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo aayadii quraanka ahayd soo ilaahay laba iskuma lamaanin say isu xusuusiyaan markay ta kala halmaanto waa halmaan baa laga hadlayaa naqsaanta diintanadu maxay tahay bay weydiiyeen wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadaysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa nuqsaanta diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin ma aha laakiin macna wax weeye raggii muddada way cibaadaysanayaan ayagana cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u sameeynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera bimaana wax weeye xadiidkaasi ma jiree siyaasadda waad geli kartaane haddaan kursiga qabtana dawladda waan idinka qayb geline taageera waay ma siyaasad iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa oo xadiista nabiga loo inkiraa laakiin waxaadan kula yaabin soomaalida raggii dalkooda burburiyey oo dhiigooda daadiyey oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyey oo dhib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta duriddeeda in kuraas laynagaga raadsado shalay dal la burburiyey
iyo dhiig la daadiyey iyo ummad la baabi'iyey baa kuraas lagu helo rag baa kuraas ku fuulay maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya